وهرين runtii waxay ii tahay maalin aad u farax badan sidii nila sheegay magacayga waa Daawud Jiraan waxaan ahay madaxa hay'adda Maasiko runtii markaad wax ku soo daasho oo miraheeda hesho farxad aad iyo aad u fara badan bay ku tahay waxaan rabaa inaan laba eray inaan halkan ka soo jeediyo annaga haddaan nahay bahda taakulayso ummadda Soomaaliyeed oo NGO-ga ah runtii waxaan ku faraxsannahay inay tan ka duwan tahay wixii aan samayn jirnay oo ah in dadka markii abaar dhacdo uu la gargaaro sidii wasiir Jamaal ka dhawaajiyey runtii fursad aad iyo aad wanaagsan baan na soo dhexmartay annaga bahda bangiyada Soomaaliya SBA aad baan ugu mahadcelinayaa Dr. Qadar iyo tiimkiisa bahda Soma oo financial inclusion-ka MFI Association-ka uu CEO-da nala fadhiyo dowladda oo hormuud u ahayd Central Bank halka ma nala joogo laakiin Mahdi iyo tiimkiisa gargaara members of the Chamber of Commerce runtii fikraddan waxay ahayd fikrad annaga iyo iska kaashanay dowladda Sweden qaybteeda SIDA inay aan runtii bangiyada Soomaali ay u dhabar adeegaan inay lafdhabarka ummadda Soomaaliyeed oo ah xoolaha sidii ay maalgelin uyka ay leeyihiin ay ugu samayn lahaayeen soo runtii munaasabka ugu horreeyo ama mahadcelinta ugu horreeya waxaa iskale bangiyada Soomaaliyeed oo u dhabar adeegay oo ugu horreyso bangiga IBS runtii Cabdirasaaq chairmanka iyo CEO-ga Cumar waxaan u sheegayaa tiimka IBS nala shaqeeyay inay ahaayeen dad aad u hufan runtii u dhiire adag oona ku dhiiraday arrintii aan soo jeedinay inay nala qaataan aad iyo aad ay mahadsan yihiin waqti dartii Maasiko dhowr iyo 10 sano ayay Soomaali ka shaqeysaa 15 sano ka badan runtii waxaan oran karaa mashruucan aan maanta aan daafurayno inuu yahay mashruucyada isleenahay waa ugu saameys badnaan doonaan xagga dhaqaalaha ama horumarinta waddanka marka anigoo ku hadlayo afkii aniga iyo tiimkayga runtii waxaan ku faraxsanahay inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego wada shaqaynta wanaagsan bangiga IBS na dhaxmartay iyo dowladda qaybaheeda kale iyo ururada ku gadaaman bangiyada aan runtii aan aad u jecelnahay inaan hawshan aan sii dardargelinno runtii hadda hindiso waxaan wadnaa annaga iyo SIDA inay xoolaha keli aan ka gudubno aan ahaanin oo ka gudubno oo insha Allah next phase uu noqdo inclusive finance for Somali productive sector waxaa hindisaha nala ah inay IBS iyo bahda la wadaagta bangiyada kale aan runtii haddana dardargelinno sidii beeraha energy-ga fisheries-ka loogu heli lahaa product sidii kobciyo oo kala ah oo Soomaalida nafteeda ay maalgashan taasna waxaan runtii aan ku darayaa aan mar labaad ku darayaa ereygii uu yiri Chairman Cabdirasaaq iyo inankayga Suleymaan oo aan runtii ku boogaan aan runtii aan kaga codsanayo ummadda Soomaaliyeed inay bangiyada wax dhigtaan ilaa lacagtan ay bangiyada bixinayaan waa lacag Soomaaliyeed taas halkaas aan kaga baxay